Bismillahirrahmanirrahim. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta dah furay toddobaadka xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Furitaanka xuska waxaa ka qayb galay aqoon-yahano, dhaqaatiir, culimooyin, odayaal, siyaasiyiin iyo culimada ugu waaweyn uguna caansan dalkaasi Turkiga. madaxweynaha ayaa furitaanka xuskaasi kula hadlay dadkii ka soo qayb galay kulankaasi isagoo uga mahad celiyay ka soo qaybgalkooda kulankaasi xafladda dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. madaxweynaha ayaa ummadda islaamka meel walbo joogaan ugu hambaliyeeyay xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee isagoo dadka islaamka ah ka codsaday inay iscaawiyaan iskuna naxariistaan maadaama nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu ahaa mid aad u naxariis badan. waxa uu sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ammaan u soo jeediyay dadka iyo culimada ku howlan qabanqaabada dhigista xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Selam sana ya Nebi Allah. Selam sana ya Resulallah. Selam sana ey Resulü Kibriya. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram.